siyaasiyadan Axmed Cilmi Doolayar oo xilal kala duwan ka soo qabtay xukuumadihii kala dambeeyay Soomaaliland ayaa waxa uu ka hadlay musharaxiinta ka soo jeeda gobolada bariga iyo galbeedka Soomaaliland ee isaga sharaxaya gobolka Murujax doorashooyinka wakiilada iyo deegaanka waxaana uu soo jeediyay bulshada deegaanadaasi in musharaxiinta ay gobolka ka sharaxayaan ay kuraasta deegaanadaasi u soo wareejiyaan gobolka Murujax si ay xildhibaan halkan ugu soo saaraan amaba la kordhiyo buu yiri kuraasta golaha wakiilada waxaan la soconnaa in ay doorashooyinkii golaha deegaanka iyo golaha wakiiladuba ay dhawaan dhici doonaan haddii Ilaahay idmo waxaan doonayay oo uu Baytul Qasiidku yahay inaan ka hadlo golaheena wakiiladu waxa weeyaan 280 xildhibaan ee saddexda xisbi ay soo sharaxaan sida aynu ognahay gobolada oo tiradooyinka la siiyay waqtigii maxay ahayd ayna wadda kaba soo gelin loo qoondeeyay gobolada oo ku salaysan reeraha dega ay tahay tirooyin loo qoondeeyay waxaan ognahay maanta jamhuuriyadda Soomaaliland magaalada Hargeysa caasimadda in ay reer Soomaaliland isugu yimaadeen sidanu ka warhayno 2014 United Nationska qoladan UNFP la yiraahdo waxay sameeyeen tirakoob ay yiraahdeen oo bariga waxa jiray Soomaaliland oo Soomaaliyadii guud ahaan u qaybiyeen Soomaaliland, Puntland iyo Central Southern Somalia oo ay yiraahdeen idinku sameeya tirakoob dhexdiina markii la sameeyay waa la shaaciyay Nairobi laga shaaciyay Soomaaliland waxay noqotay tiro 3 milyan iyo bara markaynu eegno maanta marka 280 xildhibaan marka ay 1.2 ama 1 milyan iyo dhibic 200,000 ugu yaraan ay degan tahay gobolka Murujax Soomaaliland 280 xildhibaan intay ka heli karaan weey maadaama reer Soomaaliland ma sha Allah ay caasimadii ku soo guureen waxa jira qabaayil fara badan ama bariga ka yimaadaan ama galbeedka ka yimaadaan oo hungureynaya inay gobolka Murujax iska sharaxaan xaq bay u leeyihiin inay iska sharaxaan hase yeeshee 30 sano ka hor tiradii lagu qoondeeyay ee 60kii 300kii xildhibaan lahayn 2.5 bar ratio ahaan loogu dhuftay maanta 90kii ilaa 30 sano ee maanta aynu joogno ka dambeeyayna haddii la yiraahdo baarlamaankii hal la kordhiyo 2.5kii tira ka badan ayaa ku kordhisa baarlamaankii lama kordhin marka dadweynaha walaalaha yimid gobolka Murujax duruuf kasta ama sifo kasta ha ku yimaadaan waxay hungureynayaan inay iska sharaxaan gobolka Murujax oo waa runtood oo dadkii ayaa soo guuray oo caasimadda yimid laakiin de kuraasidii ay ku lahaayeen gobolada kale ay deganaan jireen lama soo rarin oo Murujax lama keenin 20 kursi ee Murujaxna sidaynu ognahay waxa loo qoondeeyay reeraha degan gobolka oo gobol walba reeraha degan ba tirada bariga la siiyay ama dheeraad ha noqoto ama khalad ha noqotee loogu qoondeeyo loogu talagalay marka waxaan oran lahaa shacabka ka soo guuray gobolada galbeed iyo bariba ha noqdaan oo xaq u leh inay iska sharaxaan gobolka Murujax de kuraasidiina hal la soo guuraano shacabkii codkii un bay la soo guureen kuraasidii ba dhimantay haddii kale waxay noqonaysaa xaq darro gobolkii Murujax 20kiisii xildhibaan oo berigii horeba ay dhacday 3 xildhibaan oo uu Murujax lahaa ay gobolo kale ka qaadeen in ay noqoto in reerahaasi goboladoodiina kuraasidoodii ay ka soo baxaan gobolkii Murujaxna 20kii ay la qaybsadaan sidaa darteed tala ahaan xukuumadda saddexda xisbi maxay ahayd shacabka macaasimadda soo degay deegaankii hore ee maxay ahayd gobolka Murujax iyagoo wada jira inay commissionkii iyo xisbiyadii iyo xukuumadda u tagaan ama ay gaar ugu tagaan oo ay yiraahdaan shacabkayga uu soo guuray kursigiina nala soo raro adduunka oo dhan bay ka dhacdaa waa caadi laakiin xisbiyada waxaan leeyahay yaani dhicin in gobol xildhibaanada uu leeyahay gobol kale uu ku soo maaragtay ku soo guuro ama uu u hunguroodo macnaa inuu iska sharaxo maadaama kursigiisii uu yaalo gobolkiisii adduunka ka dhacdaa
sida ay muwaadinku codkiisa u raro ee uu meel kale ugu bedesho ayaad kursigaaga u raran kartaa meesha Soomaaliya ee Muqdisho ee la isku haysto dhinac nidaam ahaan weyn kaga wanaagsanto qolada la yiraahdo dirka ninka gudoomiye ku xigeenka ka baarlamaanka xamar kursigii uu ku lahaa Muqdisho galmudug buu la guuray oo ka soo baxay marka khalad yaan loo arkin ujeedada aniga aan u jeedo waxa weeyaan macnaheedu gobolka Maroodijeex maadaama 1.2 milyan iyo dhibic 200 oo ku ay degan yihiin xildhibaanaduna ay inta tahay dadkuna ay u soo wada guuraan ama in gobolka loo kordhiyo kuraasida walka labaad ka tahay gobol walba laga soo jaro kursi oo 60 laga dhigo ama baarlamaankiiba la kordhiyo aan loo qaadan reer Maroodijeex ba loogu daray ay u qaataan dadku inay iyaguna ku soo guuroonay la leeyihiin marka aragtihaan waxaan qabaa shacabkii de Hargeysa isugu yimid waa caasimadii dalka cidna laga riixi maayo cidna laga ma laha hase yeeshee macnaheedu waxa weeyaan shacabka soo guuray ee xukuumadda iyo xisbiyada iyo komishankuba kuraasidii ay ku lahaayeen gobolada ka yimaadeen Maroodijeex loo soo raro ama baarlamaanka la kordhiyo Cabdiraxmaan Abdullaahi Fantastic Ariel TV Hargeysa